رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay ama u magacaabay xubnaha golaha wasiirada xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay waxayna guud ahaan tiradooda ka kooban tahay 68 xubnood 26 wasiir iyo hal ra'iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir ku xigeenno iyo sidoo kale 15 wasiir dawle ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo ku mashaacinayay xubnaha golaha wasiirada ayaa ka sheegay in xubnaha golaha wasiirada lagu soo xulay sharuudo adag ama lagu xiray xilligii ay doonayeen xilka wasiirka waxa uu sheegay in la kantaroolayo ama la hubinayo hantida ay leeyihiin ka hor inta aysan wasiirada noqon iyo sidoo kale inay yihiin dad aaminsan midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale sharuudo aad u fara badan waa ka ra'iisul wasaaraha ku dhawaaqaya sharuudaha lagu xiray ama ay ka soo gudbeen golaha wasiirada uu magacaabay shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono qaabkay u shaqeyn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taasida soo socota qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu Soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madaxbannaanida ummadda Soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maareynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibradiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada waa inuu la jaan qaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dawlad wanaag isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa kadib ayaa liiska xubnaha golaha wasiirada magacyadooda waxa akhriya fayeenka xukuumadda Abu Kaatim Mahdi Ahmed Guuleed Khadar ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Iimaan Cabdullaahi Cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xildhibaan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirka gaashaandhigga Ambassador Yusuf Garaad Umar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdullaahi Daahir Ismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Abu Kaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirka arrimaha dastuurka Ambassador Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan Maryan Aweys Jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdullaahi Salaad wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka injineer Cabdi Canshuur Xasan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka xanaanada xoolaha Qadra Ahmed Ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka badroolka iyo macdanta xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka amniga gudaha xildhibaan Saciid Xuseen Ciid wasiirka beeraha Dr. Fawsiya Abikar Nuur wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi wasiirka galowmaysiga iyo kheyraadka badda xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Abu Kaati Xasan Xuseen Xaaji wasiirka cadaaladda xildhibaan Saalax Axmed Jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha
xildhibaan Professor Salim Aliyo Ibro wasiirka korontada iyo biyaha Dr. Maryan Qasim Ahmed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka haddana waxaan akhrin doonaa wasiir dowlayaasha Abdulqaadir Macalin Nuur wasiir dowlaha madaxtooyada Abdullaahi Xaamid Maxamed wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baghdadi wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda xildhibaan Maxamed Cali Xagaa wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan Maxamuud Xayr Ibraahim wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xildhibaan Cabdullaahi Faarax Weliye wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr Cabdi wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan Xasan Macalin Xuseen wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada tacliinta wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan Cabdulla Xaaji Cali wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Axmed Cabdi Kaariye wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan Cabdullaahi Bila Nuur wasiir dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Cabdixakiim Xasan Ashkir wasiir dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa ku xigay wasiir ku-xigeenada xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaan Cabdullaahi Colaad Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Mukhtaar Mahad Daa'uud wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan Faysal Cumar Guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan Dr. Xuseen Cabdi Cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka xildhibaan Fahma Axmed Nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan Cismaan Maxamed Cabdi Daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo badda xildhibaan Xirsi Aadan Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan Ibraahim Yarow Isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan Xaamud Cali Xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xildhibaan Maxamed Khaliif Diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan Samra Ibraahim Cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Maxamuud Cabdulqaadir Warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda badroolka iyo macdanta xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha xildhibaan Cabdikariim Khaliif Dalac wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xildhibaan Xuseen Cusmaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshirow wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xildhibaan Axmed Cumar Islow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada isboortiga xildhibaan Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Dr. Ciise Weliye Maalin wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xildhibaan Cabdicasiis Carmaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Cismaan Libaax Ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha xildhibaan Cilmi Cumar Ceen Sane wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka codsaday golaha shacabka jamhuuriyadda baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan xubnaha uu soo xulay u arko inay yihiin kuwa la shaqeyn kara isla mar ahaantaana wadankan gaarsiin kara horumar
oon rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed hortiisa ka ballan qaado idinkana aan idin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbedelay waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan idinkuna baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin taageeradiina iyo inta hadda nagala joogto dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraadeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansaxno xukuumaddaas xubnaha golaha wasiirada ee uu maanta magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa la horgeyn doonaa xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo siin doona codka kalsoonida ama u diidi doona marka ay helaan kalsoonida baarlamaanka waxa looga fadhiyaa in wadanka ay gaarsiiyaan horumar iyo sidoo kale inay ifiyaan ama muujiyaan rajooyin cusub jiilka Soomaalida waxa sidoo kale xusid mudan in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markii ugu horeeyay golaha wasiirada uu ku soo daray wasaarad cusub oo ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta aafooyinka waana mid ku cusub wasaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho